wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdiweli Xaaji Maxamed Dalmar ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga jaaliyadda deegaankaasi ka soo jeeda ee ku nool wadankan Holland waxaana uga xog waramay xaaladaha ammaan iyo horumarneed ee ka jira dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia isagoo dhinaca kalena ku booriyay in ay ku dhiiradaan siday ugu soo noqon lahaayeen deegaanada ay ka soo jeedaan isla markaana qayb ka noqon lahaayeen dhismayaasha iyo ganacsiga lagu horumarinayo deegaanadooda deegaanka Soomaalida nimka wuxuu ku jira xaalad uu ka soo noqonayn mataqaana dhinaca horumar buu jeedsaday cadawgiisa kaliya target buu dhigtay awoodiisa isugu geeyay waxa weeyaan waa dhinaca in saboolnimada kaliya weeyaan iyo in nabadgelyada qofka deegaanka Soomaalida u dhashay iyo qofka kale Soomaaliga ku dhex nool baad ruuxi deegaanka Soomaalida joogay in uu nabad gurigiisa ku galo nabadna kaga soo baxo aad baan idin soo dhaweynaa cid kasta oo rabta inay ogaato ama timaado deegaanka Soomaalida gacmo furna ku soo dhawaato ha timaado ha maal gashato aan si Soomaalida oo dhan cidii doon ha noqoto ama Soomaali ha ajnabi haduu doon ha noqdo haduu maal gashay dadka wadan si nabad ku joogayo gacmo furna ku soo dhaweynaa marka idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad taageertaan oo nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaaga inaad nagu taageertaan taasaan ka codsanaya dhinaca kale jaaliyadda ayaa iyaguna dhankooda ku amaanay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo mas'uulkan imika soo gaaray wadanka Netherland ee maareeyaha guud ee wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdiweli Xaaji Maxamed Dalmar howlaha ay ka wadaan iyo horumarka dhinaca ammaan ee muuqda waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego ajandaha aan caaw u qabanay kulankan inuu yahay soo dhaweynta maareeyaha wakaalada warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taageerada aan u hayno xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee uu hogaamiyo mudane Cabdi Maxamed Cumar Soomaalidu ay magaceedu aad iyo aad qaaliga ugu yahay ka muuqata website-yada iyo telefisyonayaasha oo aad iyo aad noo farxad gelisa marka beeraha qaabka beeraha loo sameeyay biyo xireennada waxbarashada iyo jaamacadaha ayadana waa fariin aanu adigana kugu dhiibayno madaxweynaha dowladana aanu u dirayno in dadka la soo dhaweeyo oo wada hadal iyo wada fadhi iyo wada tashi la raadiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad waxaan ku leeyahay ku soo dhawow Holland anagu aad baan ugu faraxnay deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxyaalaha badan ee ka socda xagga waxbarashada xagga daryeelka xagga dhinac walba biyaha deegaanku sidoo u socdo iyo dawladdu siday u shaqeynayso iyo shacabku iyo say isku duuban yihiin meel runtii maaragtay muxuu ahaa aad qofku ugu naaloonayo ama ugu farxayo runtii marka